taasna isku waafaqna isku ogna ballan ilaahay ma tahay reer hebel iyo reer hebel ma dhami anaga hal hebel anaga dad islaam ahaan nahay weligood islaam aan soo ahayn kulligeen hooyooyinkeen aabayaasheen shariicada islaamka la isku daray gaalo ma nihin ilaahay aan ka magan galnay jihaad waay dagaalka aan ku jirtiin horta marka ugu horeysa inaan jihaad ku jirno aamina jihaadkuna wuxuu kamid yahay acmaasha faradul caynka qofka dadka looga rabo acmaasha laba loo kala qaybiyaa mid dadka waxa looga rabaa jamac oo sida salaada jumcaha kale iyo hadii ay qaar dukadaan qaarka kale wax ka dhacay midna fardiya looga rabaa salaada waajibka oo kale soonka oo kale jihaadka oo kale fardiya la isaga rabaa annaga dagaalkan aan ku jirno waa jihaad fardiya nooga rabaa qof la leeyahay qof bilaa uga mas'uul ma jirto qof kasto ay naftaada ugu danay dadkiina waxa laga yaabaa dad waalidiintooda 10 iyo dhowr sano arkay inay ku jiraan oo hooyadeedu tay karin oo aabbaheedu tay karin wax ahaleysaan oo maanta dambiye oo aad gasheen isku ogtiin male waa dukatiin waa soontiin wax ma xadiin shariicada islaamka wixii lagu noqay qofku ay muslim ku ahaaday waa buuxiseen waa ashaadatiin haddana hooyooyinkiina ma tay kartiin iyo aabayaashiin sababta uu tay karin waxay tahay dad waxay rabaan inay wixiina ka faa'iideystaan ay idinka dhaadhacsiin idinku gaalatiin ayaga islaam yihiin islaamatiin kulligeena nahay gaalo ma nihin ma ahaajirin man ahaadoon intaas aamina waxaan sameeyaysiin qof loogu daneeha male nin kasto madaxaada meerax ku duubo waay annaga isugu daneehayno waaridkeena ugu daneehayna dhulkeena ugu daneehayna danteena ugu daneehayna diinteena ugu daneehayna waxa la idinka rabaa nimankan aan la dagaalayno cadawga saddex siyaabood ay dadku ku haystaan qaar waa dad ka cabsaayo oo iska cabsaayo cabsi min Allah iyo cabsaayo cabsidaas ay ku haystaan qaar waa qaar u shaqeeyo oo shaqaalo u aho saas ugu shaqeeyo qaar waa qaar aan u shaqeynin fikirkooda aaminsanayn laakiin haddana la shaqeeyo sababtu maxay tahay waxay rabaan dadkan inay saan ahaadaan oo dhexdhexda lagu jiro waa dad aaminsan wadankan hadii hal dhinac isla maro oo xataa shabaabku wadanka dhan inta qabsado asaga oo wadankan u taliyo inay soo joogi karin hadii shabaab inta la saaro dawladu qabsatana aan joogi karin dad aaminsan oo waxa jiro rabo wadanka in labada dhinac la kala taagnaado oo aad degmada isku gudbi karin oo adii hooyada isu tagi karin dadka saddexdaas ay u qaybsan yihiin cid allaal cindi cabsi ku jirtay cabsi horta ilaahay ayaa kugu leh qofkii shaqo waxaas ugu jireen waxa laga rabaa shaqo ilaahay ayaa ku risaqo qof kasto oo ilaahay abuuray asaa risaqo qof kasta ajal leedahay risaq xalaala oo qof soo dilahayn ilaahay ku siiha inay horta ka tanasusho qofkii ugu jirtay wadankan iyo dadka dhibaatada ku jiro NGO u heedo ka faa'iidayana waqtigeedu waa dhamaad qofkaas faa'iido dambe kama raadiyaysa dadkan iyo dalkan dhexdooda annaga waxaan rabnaa waxaan sameeyno horta ilaahay dartiis inaa qaadatiin inaan u sameeyeen saan hore isugu soo sheegnay dagaalkan dawladda Soomaaliya federaalka ayada ku baaqday ayada dhahday wadankan cadawga dadkan heesta laga kiciyo annaguna dadka ugu baahida badan ah qoys ahaan oo dad waxaan nahay aanan 1 kiiloomitir oo dadkooda joogan oo soxor ahayn adduunyadii oo dhan waa ka harnay waxbarashadii aan ka harnay caafimaadkii aan ka harnay wax aan noo badbaadsan ma lahan gabdhaheena dhiigbaxay u dhintaan meelay ku dhibaataysan yihiin waalidiinteen uma tagi karno waxaan uga bixi karnaa hal mabda oo mid ah inaan helno halkaas mabda oo mid waxa way dagaalka inuu kulligan waajib nagu yahay oo qof loogu daneeha aysan jirin yaana la idinka dhaadhacsiin qof aan mushaar idinku soo qaatay qof mushaar soo qaatay male hadda markay imaayeen qof qasab lagu keenay ma jirto meeshaan qof kasta damiirkeeda keenay xanuunkaas meeshaan wada keenay taas waay inta kale oo aan askarta ahayn askar inay noqdaan laga shaqeeyaa sababtoo ah adduunyada qofba qofka ka askari badan tahay waa ka guul badan tahay mar kasta oo laga askari badan yahay waa laga guul badan yahay dadka dhulkeena joogo oo iska haystaa waxay nooga joogan dhulkeena u haystaan inaan annaga askarta marka hore aan ku yarnahay oo askarta aan wax kale ka aaminsanahay war adiga naftaada hadaa difaacaysid amal kasta oo la qabto saa ka dhigto noqaa hadaa xumayso xumaa hadaa fiicnaysan waa fiicnaaha askariga dambi gooniyo malaha dhakhtarku la mid yahay dhakhtarka dadka inta ka faa'iideysto oo kuliyaha ka baxsado oo dhibaateeyo dambilo waay askariguna hadduu dadka dhaco oo dambilo yahay hadduu wax badbaadiyana amal fiican oo ajir ilaahay ka sii hayo waay marka inay intaan askariga ahayn askari noqdaan aan laga shaqeeyaa walaalayaalow waxaan idinka rabnaa oo dhammaanteen isku dardaarmaynaa inaan dagaalkan uu yahay dagaal jihaada oo cid loogu daneeha aysan jirin inaan dhulkeena inaan tagno ay naga go'an tahay wixii dawladda xaggeeda naga jiro waa imaahayaan laakiin marna ha ku fakarinina qof ay idinku daneysay
midda kale qofka bini aadanka waxa uu aaminsan yahay muhiim ah hadii adiga aaminsan tahay waxaan aan sameeyay inay wax sax yihiin saxday noqayaan Soomaalidu waxay ku maamaaday geed madow wixii aad ka niyeysataa ka heshaa hadaa geedkaas bahal ka dhigtid caaw dhawaa ka cabsooy bahalku ku ahaa hadduu geed inuu yaa aamintido hargashidna waa hargal kartaa waxaan aan ka shaqeeyayna hadaa aamino waxaan ku guuleysay oo dadkeen iyo dalkeen ugu daneeyeen inay yihiin saasay noqayaan hadaan aamino waxna la isticmaalayo oo nagala daneysay sidee noqayaan cid naga daneysay malahan cid dadka meeshaan joogo habeenkii Cabdiraxiin 6 saac iyo bar markuu diyaaradda dhaawac soo saaray waa la hadlayaa aniga 7 saac markii isbitaal Digfeer la geeyay aan seexday subaxii waag markuu bariyana waa ku kalaha marka waxa la idinka rabaa niyadda yaa la idinka xumeyn ilaahay subxaanahu wa ta'aala cid allaale cid ka shaqeeyayso waxa aan ka shaqeeyaynin waxa ahayn ilaahay waxaan uga tuugaynaa inuu far iyo suul nooga dhex saaro